laba ka mid ah diyaaradaha rakaabka ee Norwegian ee laga leeyahay waddankaasi Norway ayaa lagu soo waramayaa in mar kaliya ay soo wajaheen cillado dhanka farsamada ah iyaga oo ku jira hawada. Labadan diyaaradood ayaa mid waxa ay ka soo kici tintay magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland iyadoo ku sii jeeda magaalada London, halka mid labaad ay iyaduna ka soo kici tintay magaalada Stockholm iyadoo ku sii jeeda magaalada Malaga ee waddankaasi Spain. Labada diyaaradood ayay isku mar soo wajaheen cillado farsamo taa oo keentay in ay diyaaradahaasi si degdeg ah u soo degaan. Mid ka mid ah howlwadeennada diyaaradda Norwegian oo lagu magacaabo Katharina Solli ayaa ku waramaysa in labaduba ay isku cillad soo wajaheen taa oo ay sheegtay in ay ku khasbanaadeen in ay si degdeg ah hawada uga soo laabtaan kuna soo degaan garoonka Arlanda ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Katharina ayaa sheegtay in sababta labada diyaaradood ee Norwegian ay uga wada degeen magaalada Stockholm ay tahay in diyaaradaha Norwegian Airways ay xarumo farsamo ku leeyihiin garoonka Arlanda ee magaalada Stockholm ee waddankaasi Sweden. Waxa ayna sheegtay labada diyaaradood ee ku sii jeeda London iyo Malagaba aysan Norwegian ku lahayn wax garaash lagu farsameeyo, sidoo kalena aysan u oolin diyaarada kayd ah oo rakaabka si degdeg ah halkaasi uga qaadi kara. Yeeshee waxa ay ku nuuxnuuxsatay oo ay xustay in garoonka Arlanda ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ay ku leeyihiin garaash, sidoo kalena ay u yaalaan diyaarado haddii loo baahdo si degdeg ah ay rakaabka ay wadaan ugu wareejin karaan si ay ugu kicitimaan halkii uu ujeedkoodu ahaa. Cilladan soo wajahday labadan diyaaradood oo noocoodu ahaa Boeing 737 midda labaadna ay ahayd Boeing 737 Max ayaa lagu soo waramayaa in isku cillad ay ahaayeen, waxa ayna hadda ku wada sugan yihiin garoonka Arlanda ee magaalada Stockholm halkaasoo lagu farsameynayo laguna cillad bixinayo. Norwegian Airways ayaa ah diyaarad si aad ah uga shaqeyso gudaha wadamada Yurub iyo sidoo kale dunida, waxa ayna Katharina ku nuuxnuuxsatay maadaama diyaarada kayd ah ay u yiileen Arlanda International Airport ay u suurta gashay rakaabkii ay labada diyaaradood basideen in si dhaqso leh loo qaado oo loo geeyo magaalooyinkii ujeedku ahaa ee London iyo Malaga ee Spain iyo Ingiriiska. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.